بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين بعد walaalayaal waa subax la seydii waxaan jeclahay casharkeena maanta cuntada iyo caafimaadka in aan idinku soo gudbiyo cabitaan xaqiiqdii aad iyo aad qofka hadduu cabo wax badan isbedel iskaga arki doono xagga caafimaadkiisa qofkii raba inuu weight loss sameeyana isbedel weyn uu iskaga arki doono cabitaanka cabitaan anigu aan isticmaalo subax walba marka aan soo kaco habeenkii markaan guriga tago waxa weeye cabitaanka noocaas uu eegyahay meeshan saa u jeedaan caagan waxaa fiican waxaa ku jira ilaa iyo 3 koob oo caadi ah ayuu deeqaa marka kanoo kale haddaad soo iibsatid 2 jeer 3 jeer maalintii aad dhamaysatid waa biyahaaga caadiga ah 10 ilaa 12 koob maalintii recommended ah qofka inuu cabo biyo ah marka waad ku filan tahay oo kugu filan yihiin caagan biyahan aad u jeedaan waxaa ku jira biyo cad waaye soo u jeedaan laakiin waxaa ku jira liin dhanaan iyo sidoo kalena waxaa ku jira zanjabiisha geedka ah baa ku jira soo liin dhanaantan iyo zanjabiisha geedka xididka ah wax badan markii la isku daro wax badan ayaa caafimaadka u fiican yihiin kow waxay la diriraan mataqaanaa weightka ayay la diriraan ama miisaanka zaa'idka ah ayay la diriraan laba calooshay ku socodsiinayaan oo waxa weeye wasaqda calooshaada ku jira ma garanaysa aad ay u socodsiinayaan saddex waxa weeye waxay u fiican yihiin detoxation badan ayay leeyihiin oo waxa weeye cleaning ayay kuu sameynayaan oo si fiican ayay kuu nadiifinayaan afar waxa weeye biyo badan ayaa ku jira oo biyaha cadseeda faa'iido badan ayay leeyihiin biyaha cad marka maskaxdaadana ugu fiican yihiin jirkaagana biyo ayuu u baahan yahay marka liin dhanaanta faa'iidooyin badan oo kale ayay leedahay waxay leedahay ii sheeg vitamino kale oo qofku uu u baahan yahay ayaa laga helaa zanjabiisha sidoo kale waxa weeye xanuuno badan bay la dagaalantaa iyadana marka waxyaalahan oo dhan oo yacni waxa subax alaaseydii qofka markuu cuno markuu soo kaco ayaan ka wadaa before uusan cunin waxba ayay biyahan fiican yihiin marka waxay kaloo ku fiican yihiin metabolismkaaga ama dheefshiidkaaga aad ayay u speed gareynayaan oo aad ayay mataqaana u shaqeynayaan haddii aad biyahan cabto subax alaaseydii kadib cabaar kadibna aad xuntid isla markiiba calooshaada waxaad gelisay way kaa baxaysaa jirkaaga ayay nadiifinayaan marka waqtiyada ugu fiican oo biyahan la cabo waxaa ka mid ah subax alaaseydii qofka markuu soo kaco iyo habeenkii qofka markuu u seexanayo laakiin subaxii ayaa ugu fiican biyaha waxaa fiican biyo kulul inay ahaadaan faa'iidooyin kale oo fara badan ayay biyaha kulul leeyihiin marka waxaa loo baahan yahay barnaamijka cuntada iyo caafimaadka mar walba waxaan isku dayaa wax qofku uu mataqaan dadkeenu aad ugu baahan yihiin ay mar walba ay ka hurdaan ama aysan si fiican uga fakerin oo soo gudbiyo biyahan mar walba cab isku day shaqadaada inaad u qaadatid caag noocan oo kale soo qaado shaqadaada u qaado meelaha kale u socotid u qaado shaah intaad cabi lahayd ama biyo qasan aad cabi lahayd biyahana 100% kuu fiican caafimaadkaaga u fiican yacni maskaxdaada u fiican waxay kaloo leeyihiin biyahan waxay kaa dhigayaan qof energy leh tamar fiican leh oo shaqaysan kara oo soo jeeda oo mar walba waxa weeye active ah zanjabiisha ku jirta maadooyin fara badan ayay leedahay oo qofku mataqaanaa xataa haddii dhiigaaga si fiican ayay u socodsiinaysaa waxyaalaha wasaqda ku jirana way ka saaraysaa liinta sidoo kale faa'iidooyin fara badan ayay leeyihiin vitamino iyo macdin fara badan baa liin dhanaanta ku jirta oo meelaha kale aan laga helin marka walaalayaal insha Allah barnaamijkeena cuntada caafimaadka qadarka daqiiqadaha ah waxaan kula wadaagayaa insha Allah casharkaas ay u jeedaan waxaan jecel casharka inaad isgaarsiisaan dadka saaxiibadiin dadka walaalahiina ay social media kula jirtaan in aad la wadaagtaan inta casharkiisa ka arki doono waxaan ka tagayaa sida salaanta islaamka والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته